gabadhan oo lagu magacaabo Maryan waxay mar walba ka soo daahdaa fasalka ay ardaydu wax ku baranayaan waxaana mar walba oo ay soo daahda garaaca macallimadeeda luqadda Carabiga sababta loo garaacaya ayaa ah inaysan mar kala soo daahin mar walbana macallimadu waxa ay ka garaacdaa gacmaha ma taqaana waxa ay u sheegto macallimada haddii ay ardaydu su'aalaan ma siisa jawaab ay raali ku yihiin waxayse ushu u noqotay mid joogto ah oo aysan mar walba hureen asahatee maalin maalmaha ka mid ah macallimadii ayaa wadada ku aragtay Maryan oo dhaqaysa mid ka mid ah gawaarida yaryar si ay u hesho waxay ku quudiso carruurta yaryar ee la dhalatay macallimadii waxay arintaasi ku noqotay yaab iyo amakaag asahatee Maryan mar walba oo ay soo daahdo waxay si aad ugu dadaali jirtay helidda nolol maalmeedkeeda iyo kan walaalaheed ka yaryar kadibna madrasada ayay u aadi jirtay si ay wax u barato macallimadii ayaa bilowday inay nafteeda la hadasho iyadoo nafteeda u sheegaysa alla way cafi maxaan u garaacayay ardayda yar ee Maryan waxaanan ogeyn xaaladdeeda iyo sida ay tahay ama waxa ay ku quudiso walaalaheed macallimadii ayaa u laabatay gurigeeda Maryanna sidii caadada u ahayd waxay mar kale ka soo daahday xiisadii markii ay fasal ka soo gashay ayay dhiibatay gacanta si ay macallimadu u garaacdo balse maanta xaalku wuu ka duwan yahay sidii maalmo ka hor uu ahaa waxayna macallimadii bilowday inay u shadhigto iyadoo indhaheeda ay ku soo istaageen ilmo kadibna ay laabta gelisay Maryan ardayadii yarayd ee Maryan iyo ardaydii kale ee fasalka dhiganayay ayaa dareemay in macallimadu ay soo ogaatay xog fara badan haddaba imise carruura oo aan gaarin 10 sano ayaa maalin walba sidan oo kale ugu dhiban daafaha caalamka qof walba oo waalidana wuxuu jecel yahay in carruurtiisu ay ku noolaadaan nolol midda ugu heerka sarreysa balse waxba kama oga kuwa aan waxba haysan haddaba daawade taageer qofka masaakiinta ah oo ay ugu horeeyaan carruurta iyo hooyooyinka ee aan waxba haysan maxaa yeelay adiguba ma jeclid gaajada ama dhibaatada kale allow u gargaar dadka masaakiinta ee dhibaataysan si faafi oo gaarsii walaalka si uu u ogaado una caawiyo masaakiinta